Google sanadii 2014 jawigu wuxuu ahaa mid degan mana jirin cid saadaalin karta sida ay wax isku bedeli doonaan iyo wax sida ay wax u dhici doonaan meesha go'doonsan ee Gaza waxa uu ahaa dagaalkii saddexaad ee ka dhacay tan iyo 2008 waxaana uu ahaa dagaal aad moodin hore loogu ballamay in waqtigaasi uu dhaco danka Israel dagaalkani waxa uu ahaa dagaalkii sideedaad tan iyo markii la aasaasay waxaana uu socday in ka badan 50 maalmood isaga oo galaaftay nafad tiro badan isla mar ahaantaasina lagu bixiyay kharashaad badan marka halkan la joogo waxa jira fikrada ay Falastiiniyiintu aaminsanayeen oo ah in Israa'iiliyiintu jilicsan isla mar ahaantaasina aanay awood badnayn oo ay ka hortagi karaan balse Israa'iil waxa ay u muuqataa mid beeninaysa taasi iyadoo kharashaad tiro badan iyo ciidan badan gelisay si loo khatar geliyo ciidanka Hamas iyo sidoo kale goobta go'doonsan ee Gaza oo ay ku xoogan yihiin kooxda Hamas iyo sidoo kale kooxaha taageera kuwaasi oo qaybsan laba kooxood oo kala ah garabka hubaysan iyo garabka siyaasiga ah ee Hamas danka kale ujeedada Israa'iil waxay ahayd in la baabi'iyo goobta Gaza ee go'doonsan ama sidoo kale laga saaro Hamas si loo burburiyo balse taasi waxa ay noqotay mid u eegi mid fashilantay waxaana Israa'iil ay keentay kumanaan ciidamo ah kuwaasi oo markasta sugaya in ay gacanta Falastiiniyiintu la kulanto ama sidoo kale u bandhigan dil goor kasta dhici kara waxa kale oo ay Israa'iiliyiintu aaminsanayeen isla mar ahaantaasina ay doonayeen inay baaritaan ku sameeyaan dhammaan guryaha ku yaala xarunta go'doonsan ee Gaza kuwaasi oo ka baaraya wixii hub ama looga shakiyo in ay taageero u yihiin kooxda Hamas balse taasi waxa ay noqotay mid suurtagal weyda marka dhanka Israa'iil loo eego sidaasi waxa sheegay muwaadinkan Israa'iiliga ah oo ka qayb qaadanaya barnaamijkani kale xaalku kaga xumaa Israa'iiliyiinta sida ay moodayeen waanu ka xumaaday waxana uu dagaalku socday ku dhawaad 50 maalmood iyo in ka badan waxana ay taasi keentay in ku dhawaad 1 milyan oo qof oo Israa'iiliyiin ah loo diyaariyo goobo ay ku dhooman karaan kaga dhuntaan gantaalaha Hamas ka soo ridayso Gaza si ay uga nabad galaan dhibaatadaasi balse waxa uu ninkan kale u arkaa inaanay ujeedadu ahayn baabiinta Hamas oo kaliya balse ay ahayd in Hamas la tuso dhibaatada iyo awoodda ay leeyihiin Israa'iiliyiintu isla mar ahaantaasina ay u geysan karaan kooxda Hamas taasina waxa ay noqotay marka aragtidiisa loo eego mid suurta gasha kala duwanaanshaha aragtida Israa'iiliyiintu waxa uu sheegaya sidoo kale ninkan inuu garan waayay bilowgii dagaalka ujeedku waxa uu yahay oo uu isweydiiyay ujeedku ma burburinta Hamas ba mise waa baabiinta Gaza balse waxa uu sheegay inuu goor dambe ka hor helay markuu dagaalku dhamaaday in Hamas iyo Gaza la soo gaarsiiyay dhibaato xoogan balse ujeedku aanu ahayn burburinta Gaza sida aanay ujeedadu u ahayn burburinta Tel Aviv maadaama oo xaalku sida ahaa madaxda Israa'iil waxa ay doonaysay inay gacanta ku soo celiso isla mar ahaantaasina ay hoos keento xukunkooda gumaysiga iyo dulmiga ku dhisan goobta go'doonsan ee Gaza balse taasi waxa ay noqotay mid ay kala kulmaan dhibaato aad u fara badan oo aanay ka filaynin inay suurtagal tahay inay Hamas awoodda inta leedahay waxana ay isweydiinayeen hubka inta leeg iyo dhibaatada inta leeg ay geysteen Hamas halka ay ka keenaan awoodda inta leeg waxa sidoo kale ay sheegeen in ay dhankooda ka gashay kharash iyo maal aad u fara badan taasina ay keentay in markii dambe dagaalka si degdeg ah loo joojiyo
dagaalka kadib waxa uu yiqmay awoodii Israa'iil isla mar ahaantaasina waxa ay keentay in ammaanka Israa'iil uu khatar galo sida ay cadeymuhu noo tilmaamayaan waxa jirtay in ay dhibaatooyin la soo darsan ciidanka ammaanka iyo askarta reer Israa'iil ilowgii bishii January ee sanadii 2014 oo ay tahay ka hor 6 bilood intaanu dagaalku bilaabmin waxa kooxda ammaanka guud u qaabilsan Israa'iiliyiinta ee Shaamaak loo yaqaan soo gaaray macluumaad sirdoon oo sheegaya in ay Xamaas wado diyaar garowkii uu xoogana muddo sanad ah isla mar ahaantaasina ay wado tababarro ay ka wado gudaha Gaza iyo sidoo kale agagaarkeedaba waxa sidoo kale xogtu ay intaasi ku dartay in hogaamiyaha guud ee kooxda dhaarsan ee hubaysan ee loo yaqaan Maxamed Dayf uu xoojiyay dhammaan ciidamadii ka joogay agagaarka Gaza iyo sidoo kale gudaha si ay uga howlgalaan dagaal noocan oo kala oo soo socda waxana uu sheegay in uu cadawgu soo dhawaaday dagaalna uu goordhow bilaaban doono oo ay ka diyaar garoobaan sida uu dhastaa badan leh si ay shacabku ugu soo gaarsiiyaan guul iyo wax qabad la taaban karo Xamaas waxay sheegaysaa in dhankooda ay sameeyeen diyaar garow xoogan isla mar ahaantaasina ay ku talagaleen wax kasta oo ka hor yimaada inay baabiyaan cagtana mariyaan si ay shacabkooda u soo hooyaan guulayii wax ku oola isla mar ahaantaasina ay u gaarsiiyaan himilada ay reer Falastiin ku nool yihiin in la xoreeyo Gaza Shaamaak may bixineen macluumaadkaasi soo gaaray kumanay wargelin inta kale ee Israa'iil taasina waxay keentay kadib markii uu dagaalku dhamaaday in la weydiiyo sababaha kalifay isla mar ahaantaasina uu dhinaca kale ku riixay in ay iyagu qariyeen oo ay Israa'iiliintu sheegeen in ay ka hortagi lahaayeen haddii hore u ogaan lahaayeen waxa uu ninkan Israa'iiliga sheegaya in kastoo ay adag tahay ka waranka arrintaasi balse waxa uu sheegay in ay sirdoonkoodu ka warhayeen isla mar ahaantaasina ay xog istiraatiiji ah oo tilmaamaysa diyaar garowga Xamaas balse waxa uu sheegay in aanay filaynin in hawsha inta leega ay socon karto balse ay ku talagaleen ay socoto 7 ama 10 cisho dagaalku isla mar ahaantaasina ay soo gabagabeeyeen iyagoo yeelaneen gacanta sare balse xaalu isbedelay oo ay sheekadu gaadhay 50 cisho iyo in ka badan كمو جرين إن حماس ديار جرو حوجان سمايس إسلام رهان تاسنا يقطع قول دارنير وقارة يلا برتمها إسرائيل إسلام رهان تاسنا ديار سي كان طالع هريد ضدها أول قطوقين يقولي هاي دقيقين ضد كيهودا يكونوا الجودها إسرائيل فلسطين محمد ضيف أبو خالد وهو جامية كوحدة دارسن الجرب كهوبيسن الله يقانو قطايب القسام waxaana Israa'iiliintu ay raadinayeen in ka badan 20 sanadood isla mar ahaantaasina waxa uu dhowr jeer ka fakaday gacmahooga iyaga oo sirdoonkooda u tibaaxay goobaha uu ku sugan yahay balse dhanka Israa'iil waxa looga yaqaanaa Abu Shamaah oo ah ninkii lahaa 9 nafood محمد ضيف waxa uu ka badbaaday in ka badan isku day hal mar dil loo geysan lahaa waxaana uu si dhuumasho ah kaga baxsaday sirdoonka Israa'iil waana sababta ay u bixiyeen ninkii lahaa 9 nafood iyaga oo muddo ku raad joogay waana nin xariif ku ah raad gadashada ama ka dhuumashada sirdoonka إسرائيل محمد ضيف حيسكو جيسي أو تدسرتونتي وحوجان إسلام رهان تاسن وحيسكو ضيدين جعنتا كوريتو أمروا لحديث قابتو كسوين هاي بلس تاسي وأقول دريستي ما داموا محمد يهاي ننحرف كو أراد بشرا يدوم وشرا سرتونكا غزة
maanta kama muuqdo maxamed dayf lagumana dhex arkayo balse waxaa jira diyaargarowkii ugu xooganaa iyo bandhig milatarikii ugu xooganaa ee muddo sanada ah oo ay xamaas ku soo bandhigayso hubkeeda iyo ciidamadeeda wadooyinka Gaza waxaana ay taasi keentay in Israa'iiliintu sas ka qaadaan diyaargarowgani waxaana ay ahayd bishii koowaad ee sanadii 2014 حماس waxa ay samaysay isbedel xoogan isla mar ahaantaasina waxa ay diyaarisay dhammaan waxa looga baahan yahay koox sidan oo kale ah waxa ay leeyihiin hogaamiyayaal military gaashaanlayaal iyo sidoo kale guutooyin gaar ah oo loogu talagalay inay sameeyaan wixii loo baahan yahay waxa kale oo ay leeyihiin koox ku takhasustay qodidda godadka noocan oo kale ah ee dhaadheer sidoo kale waxa aan ka marnayn dhinaca tiknoolajiyadda oo ay ku shaqeeyaan iyagoo awood ku leh dhinaca tiknoolajiyadda waxana ay geystaan dilal noocyadooda kala duwan iyagoo leh kooxo lagu tababaro inay wax kharibaan isla mar ahaantaasina ay qas ka sameeyaan gudaha Israa'iil balse Israa'iil waxay ka aaminsan tahay koox argagixisa marka laga yimaado macluumaadka ay heleen Israa'iil balse waxa jirta qasada ay mar walba ilaalada ku hayaan 24 saacadood inaanay ahayn qasada dhabta ah ee ay jirto qasa kale oo ku jirta dhulka hoostiisa taasi oo la mid ah qasada dhulka dushiisa saaran ee ay ka warhayso Israa'iil وعالم كيالا دولك هوستيسا إسلام رهان تاسنا ككوبان قدد قارة يكو دوال لح طبق أولا نوعيك لدودوان كواسيون لحددين قوبها يكو يالان يقاب قايو دزيهين تونا godadku waa noocyo kamid ah farsamooyinka ay isticmaalaan kooxda Xamaas iyo garabka hubeysan waana nooca Israa'iiliintu yaqaanaan dagaalka shaydaanka ah kuwaas oo ka aaminsan godadka inay yihiin goob aan lagu dagaalami karin waxana ay rumaysan yihiin godadka ay Xamaas ku nool yihiin inay ka weyn yihiin jamhuuriyadda Israa'iil isla mar ahaantaasina ay khatar gelin karaan goor kasta amaankooga iyaga oo rumaysan in marka dagaalku bilaabmo loogu faafo gudaha godadka halka laga filayo qasada sare markay Gaza la joogo waxa loo qaybin karaa laba qasada hoose iyo qasada sare waa mid ay ku nool yihiin shacab caadi ah balse qasada hoose waa ta ay ka socdaan howlgallada rasmiga ah iyo diyaar garowga dhabta ah ee ku saabsan dagaalkani iyo dagaalo kale oo hore u dhacay waana ta ay ku jiraan godad loogu talagalay in laga fuliyo weerarada oo kaliya halka ay jiraan godad kale oo nolosha caadiga ay ka jirto kuwaas oo ay marna galaan marna ka soo baxaan kooxda Xamaas waana ta sidoo kale loogu talagalay in laga sameeyo godadka gaadhaya bartamaha Israa'iil si wax loogu yeelo dadka degan gudaha Israa'iil ee Yuhuudda oo ay Xamaas ka soo horjeedo deganaanshahooda sideed iyo tobankii Maaj sanadii 2014 waxa Israa'iil ay sheegtay inay heleen god cusub oo ku yaala koonfurta fog ee Gaza waxana ay taasi khalkhal gelisay isla mar ahaantaasina yaxya ku abuurtay shacabka reer Gaza balse Xamaas ayaa beenisay waxana ay sheegeen in godkan yahay god hore looga guuray isla mar ahaantaasina ay Israa'iiliintu ku talagaleen inay ku khalkhal geliyaan dareenka iyo shucuurta shacabka reer Gaza taasina aanay waxba ka jirin oo aanu ahayn god hadda la isticmaalo arrinta la yaab kale ayaa noqotay markii wasiirka gaashaandhigga Israa'iil uu sheegay in la waayay godkii hore loo shaaciyay in la helay taasina ay Xamaas gelisay reerayeen niyad cusub waxana ay sheegeen Xamaas inay godkani hore u baabiyeen isla mar ahaantaasina ay Israa'iil heshay sawir kaliya oo ay Xamaas u dirtay
ujeedku wuxuu yahay in garabka dhaarsan ee Xamaas ee hubaysan loo diyaariyo goor kasta inay ka hortagaan dagaal kasta oo dhici kara xilli kasta habeen kasta maalin kasta iyo sidoo kale daqiiqad kasta waxaana ay taasi keenaysaa inay heegan ku jiraan saacad walba si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaq kasta oo ay u arkaan inuu khatar ku yahay ammaanka Falastiin iyo sidoo kale shacabka reer Gaza iyo nafahoogaba 12 Juun isla sanadkii 2014 waxa Israa'iil shaacisay in la waayay 3 qof oo deegaanka degan magaalada Khaliil agteeda taasina isla markaasina ay keentay inay ku toobaan kooxda Xamaas in muwaadiniintaasi ay afduubteen ama ay iyagu dhibaato u geysteen ay taasi keentay in markale cabsi soo food saarto shacabka Israa'iil gaar ahaan kuwa ku nool agagaarka Khaliil iyo sidoo kale deegaanada ay Xamaas soo gaari karto waxaana taasi ay keentay in Israa'iil ku dhaliso warwar cusub iyo sidoo kale in ay isku dayaan inay ka hortagaan dhibaatooyin noocan oo kala lama helo 3 qof ee hore loo waayay ee lagu tuunsanaa kooxda Xamaas إسرائيل مركب وحياة شيء حقا إن الدينتين صدق يقف لكن وحي كرادين ينبغي قوبا إن نوليين سمران تاسين النور الله هلو وحنا تاسي كنتي لبا تضبات كذبين لهلو صدق يقف أمي ده إسلام ران تاسين اللي دلي taasina waxay dhalisay cadhooyin iyo sidoo kale mudaharaado iswata waxaana ay keentay in xubno Falastiiniyiin lagu dhaxdilo khadka cagaaran ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta taasina ay ugu dambeyntii keentay inay cadho dhaxmarto isla markaasina ay sababtay dagaalkii ka dhacay waqtigaas balse arrintan dhaxdinta dhalisay ayaa gubitaanka la gubay Maxamed Abu Qayr oo wiil yar ahaa isla markaasina ay gubeen xubno Israa'iiliyiin taasina ay keentay in Israa'iil aaminsan tahay in haddii laga oohiyo 2 qof oo Israa'iiliyiin ay ooyaan 2,000 oo qoys oo Falastiiniyiin si ay uga argudaan 2 qof ee laga oohiyay إسرائيليين توي شيئين إن حتى طب هدي لو بهذا من سنة إسلام الآن تاسنا يكوبيا نفاه فلسطينيين سلوا أرجو حبنا لقوا يرير إسرائيل بلسهن شباب يستبدوا يسوع قاري شعب فلسطين قارهن غزة وحنا كوحدة دارسن أي حماس أي وديا جروبين إن أي كفل عليان هن شباب يسوع قاري أوترنا في إسلام الآن تاسنا ay kaga jawaabaan wax kasta oo macquul ah oo ay kaga jawaabi karaan arrintaasi waxaana fariin loo diray shacabka Israa'iil iyo hogaamiyaashooda Xamaas u sheegtay in gubitaanka iyo dabka ay jideeyeen hogaamiyaasha Israa'iil iyo shacabkoodu isla markaasina aanay ka cabanin haddii ay dhacdo taatu lamidii oo ay u abaalgudi doonaan isla markaasina loo gudi doono shacabkooda dhibaatadii loo geystay iyaguna ay adeegsan doonaan dab iyo wixii loo baahday ee kale 7 July ee isla sanadkaasi waxaa إسرائيليين توي سوق قادين ويرن بنا عرقا يجو كفليي أجار كان رفع قد كويا لا تاسا كودنتين كدوات تطبقف أو كمدا كوحدة دارسن حماس تاسنا وحاي كنتي إن أو بلاب مو دجال كي ضبطها شنتي الصبح نمو sideedii bishaasi waxa ay Israa'iiliintu bilaabeen dagaalan kala goolayn kuwaasi oo ku qaaday dagaal cir iyo dhulaba goobta go'doonsan ee Gaza taasina ay keentay inay ku shiidaan ku dhawaad 10 qof taasina isla mar ahaantaasina ay sii xoojisay dagaalkii ka dhaxeeyay Xamaas iyo Israa'iil balse Xamaas waxay kaga jawaabtay isla markiiba inay rido gantaalaha noocyada kala duwan daqiiqadii ugu horeysay waxa la duqeeyay koonfurta Israa'iil taasina waxay keentay in la shaaciyo dhawaaqan hore loo shaacin oo laga digayo dhammaan xubnaha ku hareeraysan Gaza ee degan ee Falastiiniyiinta balse Xamaas markiiba waxay kaga jawaabtay gantaalaha noocyada kala duwan daqiiqadii ugu horeysay waxa la duqeeyay koonfurta Israa'iil taasina waxay keentay inuu yeero dhawaaqan hore looga baran ciidamada Israa'iil oo ah
isilaalinta muwaadiniinta Israa'iiliyiinta ee degan agagaarka Gaza iyo gudaha Israa'iil. Tan waxay u muuqatay mid argoosanaysa isla mar ahaantaasna ka jawaabaysa dadka laga laayay. taasna waxay keentay inay sawaariikhda ama gantaalada u ridaan si aan kala gool lahayn. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil waxa uu si cad uga jawaabay arrintaasi isagoo amar ku bixiyay in dagaalka la sii wado isla mar ahaantaasna la baabi'iyo kooxda Hamas iyo goobaha ay gantaalaha ka soo ridayaan. 24 saac oo kaliya markii uu dagaalku socday waxa ay Israa'iil la kulantay kaliiskii ugu horeeyay oo ahaa in kooxda Kataib al-Qassam oo guurtada dhaarsan loo yaqaano ay bilaabeen dagaal dhinaca badda ah oo ay koox commandos oo dhinaca badda u direen saldhigga loo yaqaano Sikiin oo ay leeyihiin kooxda Hamas. saldhigga Sikiin waxa uu ku yaalaa gudaha badda waana wuxuu ku dhow yahay xeebta Casqalaan loo yaqaano isagoo oo Gaza u jira ku dhawaad 3 kiiloomitir. balse waxay Hamas go'aansatay inay u dirto guuto tababaran oo commandos badda isla halkaas inay ka duulaan iyagoo wata gujisiyo iyo baabuur kale oo nooca badda lagu isticmaalaa. taasina waxay keentay in ay Hamas ku tala gasho in weerar laga fuliyo dhinaca badda iyo xeebaha Israa'iil. afar xubnood oo tababaran ayaa weerar ku qaaday saldhiggii loogu talagalay iyagoo isticmaalay dabaal waxaana ay gaarsiiyeen weerar guuleystay. weeraryahanadu waxay ka soo baxeen badda iyagoo yaacay dhinaca xeebta waxaana taasi ay keentay in ay kamaradaha Israa'iiliyiintu qabtaan iyagoo halkaasi maraya. Hamas waxay isku daysay in ay la wareegto saldhigga Sikiin oo ay haystaan ciidamada Israa'iil balse taasi ma suurtagelin laakiin waxay isku dayeen inay sameeyaan weerar guuleysta iyagoo markii dambe ku guuleystay. Hamas waxa ay diyaariyeen tababaro heer sare ah oo ay siiyeen xubnaha fulinaya weerarada noocan oo kala kuwaas oo isticmaalaya dabaal isla mar ahaantaasna markii loo baahdo qowsi kara muddo dheerna ku jiri kara badda si ay uga dhuntaan cadawga. bayaan ay baahisay kooxda Hamas waxay ku sheegtay in ay saldhigga Sikiin weerareen isla mar ahaantaasna ay ka geysteen weerar dhibaato keenay kuwaas oo sheegay in ay xataa gaadheen hogaamiyihii guutada Sikiin deganeed ka hor intii aanu soo gaadhin dhinaca xeebta. waxaana ay sheegeen dagaal dheer kadib inay geysteen dhibaatooyin xooggan iyagoo sidoo kale sheegay in ay dhib soo gaadhsiiyeen ciidamada Israa'iil gaar ahaan guutada deganeed saldhigga Sikiin ee ku dhex yaalla badda. taasina ay Hamas soo horseeday in horumar ka gaadho qaybta hore ee dagaalka iyadoo Hamas ay Israa'iiliyiintu ka aaminsaneen koox argagixiso ayaa waxay siin libilaabtay argagixii ay ku haysay Israa'iiliyiinta. balse arrinta la yaab kale ayaa ahayd in ay Hamas bila kadib heshay muuqaal ay duubeen kamaradaha Israa'iil ee ku dhegsanaa saldhiggaasi kuwaasi oo muujinaya dhacdo aad u naxdin leh.